abaanduulaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa magaalada Muqdisho uga qayb galay xaflad soo dhaweyn oo loo sameeyay saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo tababar ku soo qaatay dalka Suudaan. wariyahayaga Ibraahim Gudle Isxaaq ayaa warkana faafahinaya. ilaa 35 saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo koorso ku soo qaatay wadanka Suudaan isla markaana tababar ku qaatay dugsiga tababarka Jeneraal Dhiga Badan ayaa maanta xaflad soo dhaweyn loogu sameeyay xarunta wasaaradda gaashaandhigga ee magaalada Muqdisho waxaana ka qayb galay abaanduulaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka Sareeya Gaas Ali Baashi Maxamed Xaaji Cumar abaanduulaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa u hambaliyay saraakiishan wuxuuna kula dardaarmay in ay la yimaadaan isla markaana si asluubaysan oo mas'uuliyad ay ku dheehan tahay ula dhaqmaan bulshada. waxaan idinku hambalyeeyaa mar labaad waajibaadka qaran oo aad dusha saarateen waxa la idinka rabaa inaad asluub wanaag inaad la timaadaan inaad dadka idinka dambeeya ama xafiisyada aad ka shaqayn doontaan aad tustaan wixii aad soo barateen waxa soo barateen muhiim ma ahan inaad dirada farsamo soo bartay farsamada ku ekaanaya hogaaminta aad hogaaminaysa xafiiskaaga aad joogto oo aad hogaaminaysa ayaa ka muhiimsan waxa disciplinkaaga ka muhiimsan dad la dhaqankaaga ka muhiimsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxa la diiwaan geliyaa ninka sarkaalka ah wuxuuna ku dalaci karaa dalcadiisa ku socon karta waxna loogu dhimi karaa dalcadna laga qaadi karaa la canaana karaa waa marka uu hogaamin fiican yeesho dad la dhaqan fiican uu la yimaado. saraakiishan ayaa ka soo laabtay dalka Suudaan oo ay koorso ku soo qaateen iyagoo sidoo kale tababar 3 bilood ku qaatay dugsiga tababarka ee Jeneraal Dhiga Badan. Ibraahim Gudle Isxaaq, telefishinka qaranka Soomaaliyeed, magaalada Muqdisho.